iyadoo ay jiraan in dhowaan rabab culus ay da'een sidoo kalena daadad meelo badan ay ku fataheen ayaa wararkii ugu dambeeyey ee na soo gaarayo waxa ay tibaaxayaan in ay jiraan biyo ka soo socdo dhankaas iyo buuraha Ethiopia ilaa iyo countiga Marsabit kuna soo wajahan dadka degan tuulada Arbajaan ee countiga Wajeer. biyahan iyaga ah ayaa haatan waxaa la sheegay in ay soo jabsadeen isla markaasina soo dhaafeen meesha la yiraahdo ama lagu magacaabo Baasir ayna ku soo wajahan yihiin Arbajaan dhanka lagta. shacabka halkaasi degan ayaa waxaa digniin loogu dirayaa ama loogu baaqayaa in ay ka baxaan meelaha biyaha ay markii hore mari jireen iyo sidoo kale dhanka lagta si gaar ah taxadar u muujiyaan xilliyada habeenkii oo dadka ay jiifaan biyahan fatahaada ay geysan karaan khasaaro dhimashooyin ay ugu weyn tahayna ay markaasi geysan karaan. ka warbaahin ahaana Kulan Post waxa ay ugu baaqaysaa shacabkaas iyaga ah in ay ka taxadiraan biyahan iyaga ah isla markaasina naftooda iyo maalkoodaba ay ilaashadaan. fariintan gudbi si dad badan oo halkaasi degan ay u gaarto.